qaabka kulle ay ugu timi ka sheekaymayo waa garanaysan waa anti kasabkeedu ah xaraan weyn waxaan door biday inaanan hantidaanu ammaanteedu aysan isii raacin waxay raacaya ay yihiin camalka waxaan door biday inaan ilaahay dartii u laabto alxamdulilah hantidaas aad aragteen holiday city waxaan u malaya inuu ka kooban yahay 16 qol hoolkii shirarka 4 meheradood iyo mudulayaashii meel badan bay soo madhay oo ay cagaha soo dhigatay intii aan kole 5 sano way tahay intii hawsha aan ku jiray ma sahlanayn kole in dadku ila qaataan inaan hanta intaa laga tegay xataa waa la yiri quraan ku saar waa waantahay alxamdulilah ehelku iyagu waxay bidayeen ninkii shalay firfircoonaayo hawshan ku dhiranaa maanta inuu yiraahdo yo inta baan ka tagaya waxba ka siiya bal horta waxa ogaada bay ka aadanaya alxamdulilah way la qaateen hooyo tol walaal ehl saaxiib intuba waa soo gaabinaya waxaan ku soo gaabinaya dadka meesha hadda fadhiya aan kala magacaabi karin oo aan wada garanayo waxaan markhaatiid ka dhigayaa hantidaas inaan uga tagay ilaahay dartiis hantidaas dad baa igala shaqeeyey guddi baan u waxaynay ku wareejinteeda iyo qaabkeeda guddigaasu waa guddiga xukuumadda masjid Umar bin Khadaab inta ka kooban yahay tiradiisa waxaan maraya waraaqaha ku qoranta xamid caawi waraaqaas ninkiyaad ha guddigaas hantidaas waxaan ugu wakiilanay masjid ahaan baanu documentiga u qoray masjidka buu ku qoran yahay documentiga Umar bin Khadaab qaabka loogu qoray waa guddigaas hantidaas inay maamulaan wixii fadwo ah oo shariicadu ay ogoshahay oo danaha khayrka lagu qabanayo ilaahay raali ka yahay inay ku maamulaan iyaga waxaan leeyahay مسؤولية قادين الله يدفعه dadka meesha soo qayb galay oo ehelka tolka culimada leh dhamaanteen dambigeena Allah dhaafo waxaan rabaa marka idinkoo arkaya inaan dokumentiyo markhaatiga ka noqotaan inaan ku wareejiyo masjidka Umar bin Khadaab guddigiis oo gudoomiye u yahay Cabdinuur kan waa sabraloogi weeye guriga waa sabraloogi guriga waxaan filayaa ogaanshaha dawladda iyo codkii aan bixiyay ee qaabkii dawladda aan ku baxshayna waxaan filayaa inuu kan yahay oo isaga halkan waa nootayadii eelkii odayaashii guddigii idinku intaa ka koobnaydaan sifooyinka looga baahan yahay oo aniga uu igala wareegay dib baan ka sheegi doonaa oo ka akhrin doonaa waatan waraaqdeed maamulkii iyo dawladdii iyo markhaatigoodiina waa ku aan wey guddigaas waxaa loo wakiishay oo ay la wareegeen hantidaas sidii loogu maamuli lahaa kitaabka manasalka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam
wax shuruuda waxaan ku xiraa umaanaya kuwa isagu uu leeyahay oo dee hantiyihii lagu lahaayo sida neek maxay nexom neek waa laga bedelay nawaako waxyaalaha internet ma badnaba waxyaalahaas maahan iyagu dee inay meesha ku qoran maahan hantidaas shuruud waxaa u ah hantidaas aniga inay iga wareegto oo ay ku wareegto la gado iyadoo meesha aniga aysan waqaf ka noqon iyadoo meesha ku taala aniga aysan waqaf ka noqon sababtana waxaa keenay bilaadan baan ahay markama sugayo waddankeena waa iska burbur waxaa imaan kadha berri ka maalin hantidaas waa lahayn inaad dhacdo qoryaha soo gurto ehelkeeda dadku wixii aan markaas caqli badan ku jirin ama u muuqato hantida sidaa awgeed shuruud waxaan ka dhigay hantida in la gado oo la iibsho wixii laga baxshay markaas in wax lagu qabto ama dugsiyaha lagu dhiso wixii khayraad ah lagu qabto laakiin iyadu meesha iyada ku taalla inaysan aniga waqaf iga noqon saysan berri usoo laaban idinkuna markhaatiga waxaa ka aataan inaysan berri soo laaban karin dadkii ku soo laaban lahaa haddii kole waa dadka la dhalay la tahay way fadhiyaan qaybtood guddiga wax badan bay kala shaqeeyeen hadda hawsha aan ku wareejinaya allah barakeeyo hawshan allah u fududeeyo